Somali weynay haben wanaagsan Somali weynay haben wanaagsan waa barnaamijkii habeen wanaagsan Somali weynay haben wanaagsan Somali weynay haben wanaagsan kulanti wacan oo wanaagsan mar kale dunida meel walba oo aad ka joogtaan waxaanu idin rajaynaynaa waqti wacan iyo la socod wanaagsan channelka Aftahan Video Production caawana barnaamijka habeen wanaagsan waxaad ku maqli doontaan xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah xildhibaanada ku kacsan hoggaanka dawladda Soomaaliya ayaa si kulul uga jawaabay una goodiyay xeer ilaaliyaha qaranka Soomaaliya mudane Axmed Cali Daahir oo maanta soo saaray go'aan ka dhan ah xildhibaanada had iyo jeer u gafa madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya waxaad maqli doontaan qayla dhaanta xildhibaan Axmed Macalin Fiqi iyo xaalka guud xildhibaanada ka soo horjeeda dawladda oo maraya caawa allowsaad waayo dawladdu seefta ayay gasha kala baxday waynu faahfaahin doonaa dhageystay waxaan ku rajaynaynaa intuu barnaamijku socdo waqti wacan iyo la socod wanaagsan magacaygu waa Cabdillaahi Balwaan waana mar kale iyo barnaamijkii habeen wanaagsan Somali weynay haben wanaagsan Somali weynay haben wanaagsan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayri ayaa ka hadlay dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo qorshaha dawladda federaalka ay dib ugu dhisayso ciidamo kuwaas oo la sheegay inuu Mareykanku hakiyay dhaqaalaha uu sii jiray Khayri ayaa sheegay inay adag tahay in la dhiso waqtigan ciidamo qaran hase yeeshee ay wadaan dadaalo xukuumaddiisuna ay u ruclaynayso sidii ay marqura shacabka Soomaaliyeed ugu yagleeli lahayd ciidamo qaran kuwaas oo badbaadiya sharafkii iyo sumcaddii Soomaalidu ay lahayd waxa uu Khayri ka deeriyay waqtigan inayna suurtagal ahayn haddii aynan shacabka Soomaaliyeed u istaagin waxyaabo badan oo kor loogu qaadi karo waqtigan jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu yiri ciidamo qalabka sida iyo ciidamo qaran oo isku dhafan kuwaasoo had iyo jeer xabadka u garaaci kara jiritaanka qaranka Soomaaliya aad bay u adag tahay haddii aynan shacabka Soomaaliyeed kaalin ka geysan waa kan mudane Khayri oo ka hadlaya amuurahaasi sidaas daraadeed waxa ay maraysaa shaqada wasaaradda gaashaandhigga iyo hay'adaha amniga dalka iyo madaxweynaha iyo wasaaraha iyo xukuumaddu ay hayaan meel fiican waxaan rabaa markii inaan u sheegay shacabka Soomaaliyeed in la dhiso ciidan la tayeeyo dib u habeyn lagu sameeyo waqti ay qaadanaysaa balse waxa aan ku taaganahay jidka ugu wanaagsanaa sida aad ka aragteen dawladda Mareykanka wasiirkeeda gaashaandhigga uu sheegay ummadda Soomaaliyeed iyo dunidaba inuu rajo weyn ka qabo markan dalka iyo dadka Soomaaliyeed waqtiga kooban wax walba ay ciidamada dawladda Soomaaliyeed u baahdaanna waxa joogta dawladda federaalka oo diyaar u ah inay bixiso caawinaad ay ciidanku u baahan yihiin waqtigaas la hakiyay caawinaad dawladda hadda jirta iyada baas garaysay baarlamaanka geysay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa dawladda hadda jirta iyada sameysay baaritaanka hufan oo soo dhameystiray tirada tayada qalabka ciidanka iyo meesha ay ku sugan yihiin macnaheedu marka waxay tahay waxa la idin sheegaya waa shaqo ay dawladda Soomaaliyeed hayso shacabka Soomaaliyeed oo inuu ku kalsoonaadaan shaqada dawladooda ay Somali weynay haben wanaagsan Somali weynay haben wanaagsan wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijkii habeen wanaagsan goorna waxaad maqli doontaan xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah xildhibaanada ku kacsan hoggaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa si kulul uga jawaabay una goodiyay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya mudane Axmed Cali Daahir oo maanta soo saaray sharci cusub oo lagula dagaalamayo xildhibaanada had iyo jeer weerara u gafa aflagaadeeya madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya sida madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayri hadalka jawaabta Axmed Macalin Fiqi keenay isla markaana ka caraysiyay xildhibaanka ayaana marka hore dhageystayaasha maqashin doona waa kan xeelaliyaha guud ee qaranka oo maanta amar dusha u saaray qaar kamid ah xildhibaanada mucaaradka ku ah Farmaajo iyo Khayri oo had iyo jeer iyagoo weerar ku ah labadaasi mas'uul waxay jibiyaan xayndaabka siyaasadeed iyo xayndaabka sharciga dawladda wuxuuna yiri xeelaliyuhu looma dul qaadan doono xildhibaan dambe oo intuu saxaafadda soo hor istaago aflagaadeynaya u gafaya sida
xildhibaan axmed macalin fiqi waad xusuusataan inuu yiri farmaajo waxaan ula dagaalami doonaa sidii adeerkii aynu ula dagaalanay isaga oo waqtiga ka jawaab celinayay dowladda oo tilaabo qaad u sameysay dhinaca galmudug wuxuu ku goodiyay axmed macalin fiqi inay galmudug tahay dadkii shalay ka saaray adeerkii maxamed siyaad barre gudaha wadanka Soomaaliya isla markaana aynan marnaba u dulqaadan doonin farmaajo isla markaana ay marsiin doonaan wadadii ay adeerkii marsiiyeen hadalladaasi ayaa qayb ka ahaa hadallada aadka u kululeeyay xer ilaaliyaha guud ee qaranka wuxuuna sheegay in lala xisaabtami doono balse marka hore xildhibaanka jagadiisa uu weyn doono haddii uu qalad galo isla markaana lala xisaabtami doono waqtiga markii xilka laga qaado wuxuu mutaysanayaa xabsi iyo arrimo kale oo aad u kulul waa kan mudane axmed cali daahir xer ilaaliyaha guud ee qaranka oo qaar ka mid ah wariyaasha kula hadlay magaalada muqdisho maanta oo ay taariikhdu tahay 17 bishii 12aad waxaan shirkan jaraa'id isugu yeeray inaan la socodsiiyo ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan hay'adaha la yiraahdo law enforcement-iga ama hay'adaha la yiraahdo sharci fuliyaalka oo ay ugu horeeyaan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo xafiiska xiraalintu in ay badatay ku tumashada sharciga ee khaas ahaan mas'uuliyiinta qaranka noocay doontaan waxaan noqdaan sidaa darteed waxaan rabaa inaan iclaamino in laga bilaabo maanta waxaan dhammaan xafiiska xiraalinta iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed hoggaanka baarista dambiyada iyo hay'adaha ku shaqada leh oo dhan aan u jeedinayaa in ay qabsadaan waajibaadkooda shaqo oo ku aadan hirgelinta sareynta sharciga sidaa ogtiinba sharciga waa loo siman yahay cid sharciga ka sareysaana ma jiro mas'uul kasta ahaw xasaanad kasta lahaw xasaanadu macnaheedu ma aha oo kaliya inaad dambi ku gashid xasaanadu macnaheedu waxa weeye inaad sharciga ku ilaalisid haddii aad sharciga ku ilaalin weysana kulley sharcigu wuxuu qabaa in qof kastaaba uu sharcigu ka sareeyo ka soo bilow madaxweyne ilaa qofka ugu hooseeya ee shaqaalaha dawladda ama mas'uuliyiinta dhammaantood sharciga hortiisa waa loo siman yahay waxa kale oo rabaa inaan cadeeyo inaan laga yeelaynin qofna sida uu qaanuunku qabo sharcigaas lama soconin waxaas inuu dambi ahaa ma ogeyn sidaa uma malaynaynin inay dhacdo sharciga markuu soo baxo wuxuu leeyahay character ama wuxuu leeyahay dabeecad inuu yahay dhammaan in la wada og yahay mar alla markii la soo saaro oo lagu soo saaro faafinta rasmiga ah sharciga waxaa loo ihtimaalaa inuu yahay wax la wada og yahay cid laga yeelayo waxaas inuu faldambiyeed ahaa ma ogeyn ma jirto sidaa darteed waxaan rabaa inaan cadeeyo in ay jiraan mas'uuliyiin xildhibaano maalmahan ayaamahan dambe ku mashquulsanaa duminta dawladnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed ayagoo adeegsanaya dhaqaale ay ka heleen dalal ajnabi sidaa darteed ay laga maarmaan tahay in talaabada sharci ah ku haboon laga qaato qofkii uu ku cadaado faldambiyeed waxaan rabaa inaan sheego hay'adaha baarista waxay amar u qabaan in ay baaris ku samayn karaan si sharciga waafaqsan mar walba in ay baaris ku samayn karaan tuhun kasta oo faldambiyeed oo jira inay ku shaqeeyaan iyagoo sharciga dhowraaya ayagoo qaanuunka tixraacaya annagoo taa marayna annagoo halkaa ka duulayna darteed waxaan maanta golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka iyo baarlamankaba aan u gudbinay qoraal cadeynaya laba xildhibaan oo abaabul iyo sharci darro iyo qaran dumisnimo lagu eedeynayo cadeymaheedii iyo baaritaankeediina uu dhammaystiran yahay in ay xasaanada ka qaadaan si loo horgeeyo sharciga baarista dhimana loo dhammaystiro xildhibaanku xasaanad buu leeyahay laakiin dambiga excuse kama aha macnaha wuu geli karaa fal dambiyeed
sidaa darteed golaha shacabka waxaan ka codsanaynaa si sharaf looga codsanaynaa iyo baarlamanka in xildhibaanadaas aan qoraalka ka soo saarnay oo baaritaanka ku socday in laga qaado sida uu qaabku yahay xasaanada laga qaado si sharcigana loo horgeeyo muxuu ahaa isheeg baaritaan dhammaystiranna loogu geysto labada xildhibaan oo magacyadoodu ay kala yihiin xildhibaan xasan macalin maxamuud iyo xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriye labada xildhibaan oo baaris dheer kadib xafiiska ay u muuqatay in ay galeen faldambiyeedyo u baahan in baaris lagu sameeyo si marka baaristaas loo dhammaystiro isla markaasna haddii uu noo muuqato aan ku horgeyno maxkamadda awoodda u leh waxaan golaha shacabka iyo baarlamankaba ka codsanaynaa iyo guddoomiyahaba in labada xildhibaan aan magacyadooda sheegnay laga qaado xasaanadda kolley dembiyada loo haysto iyo qodobada loo haysto way ku qoran yihiin qoraalka aan qornay sidaa darteed uma baahna faahfaahin dheeri ah intaas ayaan rabay inaan la wadaago waxaa kaloon rabaa inaan sheego cid kasta oo uu galo tuhun ah faldambiyeed mas-uul ha ahaado xildhibaan ha ahaado ama qof muwaadin ha noqdee in sharcigu uu itiigsanayo bahda saxaafadda waxaa soo badatay waayahan in saxaafaddu ay aad iyo aad iyo aad xadgudub xadka ka baxsan oo qaanuunka waafaqsanayn ay ku kacaan ama aqoon la'aan ha u geyso ama si ku talagal ha u geystaan waxaan u sheegaynaa cid kasta oo ku xadgudubta sharciga inta qaanuunka ku siiyey xor baad u tahay qaanuunka inaad ku dhaqantaan haddaad qaanuunka ku xadgudubtaan sharciga inaad faysgaraynaysaan amar ayaan idinku siinayaa cid kasta oo isku dayda xadgudub sharci oo ama ha noqoto saxaafad ama ha noqoto cid kaleba ama ha noqoto khalkhalgelin in tallaabada sharci ee ku habboon aad ka qaadataan oo sharciga iyo kala sarreynta iyo kala dambaynta loo hoggaansamo cidna waxa uu qaanuunku siiyey lagama qaadayo cidna laguma xadgudbayo laakiin ama ogaal ahaan la'aan ha noqoto ama ku talagal ha noqotay waxaa aad u batay inaan loo aaba yeelin ku tumashada sharciga sidaa darteed xafiiska xeraalinta iyo hay-adda booliska qaranka soomaaliyeed khaas ahaan hoggaanka baarista dembiyada oo taliyaalkoodii oo dhan ay garab fadhiyaan waxaan ku waajibinayaa oo dhammaan imaqlaya in ay dhowraan sharciga cid kasta oo sharciga ku xadgudubtana in sharciga la hor keeno aad iyo aad baad mahadsan Soomaali weynay habeen wanaagsan Soomaali weynay habeen wanaagsan xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka mid ah baarlamanka federaalka soomaaliya ayaa durbadiiba jawaab kulul ka bixiyey hadalkii ka soo yeeray xiriiryaha guud ee qaranka ee ku saabsanaa in lala xisaabtami doono xildhibaanada had iyo jeer ku xadgudba sharciga islamarkaana u gafa madaxda sare ee dowladda soomaaliya xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka mid ah xildhibaanada ku kacsan hoggaanka dowladda soomaaliya ayaa sharci darro ku tilmaamay xitaa xilka uu sheeganayo xeer ilaaliyaha qaranka axmed cali daahir wuxuu sheegay mudane fiqi in axmed cali daahir xeer ilaaliyaha guud ee qaranka aan weli la horkeenin golaha shacabka islamarkaana baarlamankuba aysan ansixin xil aan la ansixina sharcigiisa lama qaadan doono ayuu yidhi axmed macalin fiqi oo aad u saluugsan inuu xitaa axmed cali daahir yahay xeer ilaaliyaha qaranka wuxuu yiri isagoo jawaabtiisa sii wata axmed macalin fiqi oo ka mid ah baarlamanka ka soo horjeeda hoggaanka dowladda soomaaliya ayaa yiri ololaha waqtigan baarlamanka ku jiro inuu u gafo waa gaf aad u weyn baarlamankuna uma dul qaadan doono waxaana wax la iska weydiin doona ayuu yiri awoodda axmed cali daahir oo ku keenay waqtigan isagoo aan bal la ansixin golaha shacabkana aanan cod ka helin inuu yiraahdo waxaan la xisaabtamayaa baarlamanka diidan dowladda soomaaliya xornimada iyo ku hadalka ayay qayb ka tahay burburinteeda ayuu yiri dowladuna ma aha dowlad military ee waa dowladda federalism awood qaybsi ah qof walbana uu kursiga ugu fadhiyo qabiilka uu ka soo jeedo axmed cali daahir ayuu ugu baaqay mudane axmed macalin fiqi inuu arrintan ka laabto islamarkaana uu mar kale saxaafadda hor yimaado una bandhigo in aanan ahayn siduu hadalka u dhigay qaar ka mid a baarlamanka uu soo hadal qaaday axmed cali daahir xeelalaaliyaha guud ee qaranka laakiin la shaaciyey inaan weli baarlamanka la horkeenin waxaa ka mid ah in baarlaman fara badan oo saaxiib la ah axmed macalin fiqi oo kasoo horjeeda dowladda maanta la xukumay islamarkaana xildhibaan walba oo ka tirsan dowladdana waqtigan uu doonayo bal inuu iska
ilaaliyo sharcigan adag ee lagu caburinayo baarlamaanka federaalka Soomaaliya cidii hadasha waxay qayb ka noqonaysaa dadka diidan jiritaanka qarannimo ayay qayb ka tahay waxayna sidoo kale si weyn saameyn ugu yeelan doontaa mucaaradka ka soo horjeeda farmaajo iyo qayre Soomaali weynay habeen wanaagsan Soomaali weynay habeen wanaagsan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii habeen wanaagsan dhageysta waad ku mahadsan tahay dhageysiga iyo la socodka barnaamijkeenan habeen wanaagsan intaynu barnaamijka lamida ku kulmi doono waa bahdii barnaamijka oo isku duuban oo idin lehee annagoo isku xiisa qabnaa habeen wanaagsan Soomaali weynay habeen wanaagsan Soomaali